waxaan rabaa marka hore halkaa inaan uga mahad celiyo reer degmada Gurceel sidii la sheegay hadday murti ahayd iyo hadday maamuus kala lahayd iyo hadday magac walba lahayd abwaanima soogaana lagu cabiray si kala lagu cabiray waxaan leeyahay ammaan dhammaanteed iyo mahad celin dhammaanteed oo dhan reer Gurceel waa masantiin maxay reer Gurceel caan ku yihiin yiri xiriirihii waxay caan ku yihiin geesinimada iyo gowraca cadowga intaas kaliya ma aha ganacsiga iyo horumarka caan ku yihiin waxaan dhihi karaa reer Gurceel waxay ku dayasho ku yihiin reer Galmudug safarka wuxuu isugu jiray inaan ku ogaano xaaladaha iyo duruufaha ay reer Galmudug ku sugan yihiin inaan ku wada tashanno waxgaradka kala duwan ee Galmudug meel walba uu joogo ugu tagno inaan nabadda iyo nabadeynta gaarsiino deegaanada Galmudug oo dhan waxaan la soo kulannay inaan xoogaal u noqono baahiyo iyo duruufo ka jira Galmudug waxaan noo qarsoomay inay kuwa gabagaba yihiin soo dhammaadeen sidoo kale waxaan noo qarsoomay meelaha colaaduhu ay ka jireen oo dhibaatooyin u badnaayeen inaan goglo nabadeed soo dhignay ayna ballansan yihiin madowna qarsoomi doonaan dhinaca amniga waxaa noo qabsoomay xaraynta maleeshiyaadkii sida wasiirka amnigu sheegay oo heer gabagaba ah maraysa inta dhimanna aan sugayno inay dhammaystiranto waqti aan dheerayn sidaasna amnigu aan sugayno inuu ku sugnaado oo hubka la isu isticmaali jiray oo sida qaldan loo adeegsan jiray uu soo galo gacanta iyo amarka dowladda Galmudug sidoo kale waa ka xunnahay waxyaabo yar yar oo meelaha qaar ka dhacay oo dhibaatooyin ah oo runtii aad iyo aad uga qoomaynayno foolxumana ah waxaan rabaa halkaa inaan ka sheego qof kasta ama dhinac kastoo ku lug lahaa colaadaas ama dhibaatooyinkaa ku lug lahaa inaan moognahay maahan inaanaan la soconno maahan haddaan maanta la qabanno maalin kalaa la qaban doonaa waana noo qoran yihiin waa ognahay argagixisada ka mid ah dadka shidaya dhibka oo doonaya inay Galmudug isku mashquuliyaan oo isku dhibaateeyaan dhagar qabayaal kale oo ujeeddo xun ah ayaa ka mid ah oo aan meel ay u socdaan la aqoon cadowga waa naqaan argagixisada waa ognahay waxay mudan yihiinna waa mari doonaa haddii ilaahay yidhaahdo maalmaha ka mida iyo waqtiyada ka mid ah kuwa hoos ka shidaya oo hoos ka riixaya oo nooc walba leh sidaan u sheegnay way noo diiwaan gashan yihiin waa la soconnaa waana joogaan hay-adihii ku shaqo lahaa wasiirkii amnigu waa fadhiyaa wuuna og yahay maalin buuna ka daba tegi doona hadii ilaahay yidhaahdo dekadii hobyana la dhisto meel fiican bayna maraysaa dhowaanna dekadii hobya waa la bilaabaya insha Allah Galmudug dekad male iyo aeroboorro male iyo jidad male waxaan isdul taagnay inaan isku tashanno dadka Soomaaliyeed dadka ugu firfircoon ugu hanti badan ugu wax quur fiican waa reer Galmudug waa la sameeyay ciidina kaalmaynaysa
ama maal gashanaysa galmudug waa soo dhaweynaynaa haddaba waxaan haysanaa heshiisyo badan iyo ballamo badan annagoo soconnaana loo imaanaya annagoo fadhiyana loo imaan maayo insha allah taasna safarkii bay noogu soo qabsoontay runtii guud ahaan markaan aad kugu sawiro safarkaasi wuxuu ahaa safar xoogaal noqosho safar shaqo safar wada tashi waxaana ku soo gebagabaynay degmada Gurceel maanta galmudug wajiga ay leedahay midnimada wada jirka isku tashiga ay muujiyeen wuxuu runtii dhalay inay iyaguna isu kalsoonaadaan Soomaalida kalena ku kalsoonaato caalamku ku kalsoonaado kalsoonidaas maanta aan haysano meel kasta oo reer galmudug jooga waxaan leenahay sida aan isula hayno sida aan maanta u taabagelinayno sida aan guusha u gaarnay aan u haysano u xaqiijino u horumarino meel kasta oo nala ka soo geli karo ama nala ka dhibi karana aan ka foojignaano iskana qabanno reer galmudug waxa yararkaa oo dib u heshiisiin bulsho ah oo meelaha qaar ka jira markii laga yimaado waa dhammaysteen midnimadoodii iyo wadajirkoodii sidii halkan looga hadlayna tan Soomaaliya oo dhibada loo adkeeyo oo khilaafkii jira la bixiyana gacan baan ka geysanaynaa dhinac walba tahay Gurceel waxaa la yiri marka fariin laga diro iyo si ay isu sheegto oo baahnaa waxay isku sheegeen wax Soomaaliya maqaati ka tahay abwaankiina wuxuu yiri waa laba gobol iyo Gurceel Gurceel waa soo dhaaftay meel qofkii Soomaaliya oo damiirliina ku qanacsan yahay qof aan ku qanacsanayna waxa leena Allah caafimaadiyo wasiirka arrimaha gudaha waa ila jooga wasiir Gurceel sahan waa ka dhan tahay xoogaal noqoshana waa ka dhan tahay degmanimadii Gurceel soo diyaari si golaha loo barsiiyo dhowr iyo 20 degmo uu sheegay saaxiibkay taar lagu jimeyn maayo waa la sameeyay Gurceel sameeyay dilayda marka haddaan Gurceel bixinay inaan degmooyinka kale xaqirayno ama reebayno macnaheedu ma degmooyin badan baan soo marnay waana u maqannahay hawshooda iyo in sidii loo diyaarin lahaana waa ka soo wada hadalnay reer Gurceel haddaysan markii degmo la siiyo gobol lagu qabsan oo degmo noogu xaraan waa jooga celinaa